بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني. عواطفنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إلهي سبحانه وتعالى wuxuu dadka amray kuna goobaabiyey inay ikhlaaska ku dadaalaan. wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ummadda faray kuna goobaabiyey wax kasta oo ay qabanayaan inay niyadda geliyaan. sidaa darteed ayaa waxaa loo baahan yahay qof kasta oo muslim ah, rabbi ateecsan oo taacada alla ku dadaalaya, inuu camalkiisa ka dhigo mid ilaahay dartii loola jeedo subxaana wa tacaala. waayo camalku waa niyadda, meesha laga jaaziyo waa niyadda, meesha abaalmarka looga siyaadiyo waa niyadda. niyaddu haddii ay xumaatay hallowdo, camalku waa hallaabaa, waana fasahaadaa. malabka mar allaala marka sokor iyo saliid lagu daro waa fasahaadaa. sidaa darteed baa loo baahan yahay camalka in ilaahay loogu barax tiro. rabbina wuxuu yidhi: wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha. dadka lama amrin ilaa inay ilaahay caabudaan mooyaane. waxa la amray waa cibaado, alle ay u qaalis yeelaan. waxa la amray waa inay alla keliya caabudaan. waxa la amray waa inay ilaahay keliya waxidaan. wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha. see ilaahay loo caabudayaa marka? mukhlisiina lahu ddiin, idinkoo u barax tirahaya, saafi uga dhigahaya, ikhlaaska ku dadaalaya, ilaahay diinka u ikhlaasinaya. waxba ha kula darina, waxba ha kula shariig yeelina, waxba ha ku dhexdheehina, oo asaga keligii cibaadada u gooni yeela. mukhlisiina lahu ddiin. waxaa la amray xunafaa'a, inay dadku soo iishaan, adyaan walba iyo diin kastoo baatila inay ka soo iishaan, diin walba oo faasiqa inay ka soo leexdaan, una soo iishaan diinta islaamka. mukhlisiina lahu ddiina xunafaa. maxaa la amray oo kale? wayuqiimu asalaa wayu'tu azakaa wadalika diinu alqayima. inay salaada oogaan, sakada ay bixiyaan, taasaa diinta qayimkee toosan ah, ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. rabbi oo la caabudo, ikhlaasnimo loo caabudo, diinta oo loo soo leexdo islaamka. camal kastoo faasiqa laga soo diin kasta in laga soo weecdo diinta islaamka loo soo weecdoo loo yimaado. salaadoo la oogo, sakada oo la bixiyo, wadaalika diinu alqayima. taasaa diinta qayimkaa walaalayaal. sidaa darteed maanta ikhlaaskii wuu yaraaday. qof kastoo camal qabanaya riya iyo sumca ku jirta. qof walba oo raba inuu wax wanaagsan sameeyo, waxaa shaytaanku ku fasahaadiyaa inuu bulshada istustuso. ilaahay waxaan ahayn oo abaalgudna siin karaa malaha. qof kastoo
ilaahay subxaana wa tacaala caabuda. cibaadadana cid kale ama waxaa loo oran doonaa ordaha ka raadsada dadkaad istustusayseen abaal ha idin siiyaane. maxayna siin karaan? way qaawan yihiin. maxayna siin karaan? way dhibaataysan yihiin. maxayna siin karaan? qoraxday taagan yihiin. maxayna siin karaan? way dhibaataysan yihiin. ayagaa baahi qaba. bacdamaa saa ay tahay ayaa waxaa loo baahan yahay qof walba camalkaaga inaad ilaahay dartii u samayso. rasuulku wuxuu yidhi inama alacmaalu biاnniyaat wainamaa likulli imri'in maa nawaa. xilligii hijrada loo kacaayey oo dadka mashaakilka iyo dhibka hijrada intay maka ka lugeeyaan ay madiine aadaan dhibkeeda ay marahayeen yaa nin gabari doontay ummu qays la yidhaahdo. way diiday oo waxay ku shardiday inuu hijrada aado. ayadoo xirxiranaysuu u tegey. ani muhaajirad baan ahay bay tiri. waxaan ka hijroonayaa maka. waxaan u socdaa madiina. haddii aad doonaysa guurkaygana waa inaad soo baxdaa oo aad maka ka soo baxdo oo aad madiine aado. hijradana aad markaa samayso. ninkii xirxirashuu galay. wuxuu galay tacabkii hijrada inuu maro, inuu dadka la lugeeyo, inuu maka ka baxo, inuu madiine aado. ujeeddada uu u socda maxay ahayd? niyadiisu maxay tahay? ummu qays hel waahee wax kale uu raadinayay ma jiro. tacabkii dhibkii rafaadkii hijrada waa maray, laakiin wax habaaba lama siinin. rasuulkaa yidhi inama alacmaalu biاnniyaat. camal kasta waa niyooyinka. wainamaa likulli imri'in maa nawaa. shakhsi walbaana wixii uu niyeysto markaa leeyahay. qof kasta oo hijradiisu alla dartii ay ahaato oo rasuulka dartii ay ahaato, qofka hijradiisa ilaahay iyo rasuulkiisa xaggooday ahaatay, hawaab baa la siinaa, abaalgud baa la siinaa, wax fiican baa loo siinayaa, camalkiisa camal fiican buu noqonayaa. laakiin qof allaale qofkii hijradiisu noqoto adduun inuu markaa helo, ay noqoto adduun inuu markaa asiibo, oo ay noqoto adduun inuu gacanta ku dhigo, ama naag uu mehersada buu dhahay nebiga fahijratuhu ilaa maa haajara ilayhi. ninka hijradiisa wixii uu u hijrooday oo markaa leeyahay. mankaa marka waxaa loogu magacdaray oo loo bixiyey kii ummu qays u hijrooday. camalka ayuu tilmaamayaa ee xadiidku wuxuu tilmaamayaa wax walba oo la samaynayo alla dartii ha noqoto. wax walba oo la qabanayo alla dartii ha noqoto. haddaad seexanaysood hurdayso ilaahay dartii ha kaa ahaato iyo inaad cibaadada ugu xoogaysato. markaad raashin cunayso alla dartii ha kaa ahaato, cibaaday kuu noqonaysaa. haddaad guursanayso alla dartii ha kaa ahaato, cibaaday kuu noqonaysaa. nudfada kaa baxda, shahwaadka kaa baxa, raaxadaad mtaqaana xaaskaaga kula raaxaysato yaa wallaahi ilaahay cibaado kaaga dhiga. maxaa lagu kala sooco lagu kala bixiya? waa niyada. hadday niyadaadu tahay tumo oo raaxayso, hadday niyadaadu tahay xaaladda noocaasa keliya ilaahay agtiisa waxaad ku leedahay ma jiro. balse haddii xaaskaaga aad u galmooto adoo ujeeddadaadu ay tahay fawaaxishta iyo xumaanta kaga dhorsanow, qof cafiif ahoo wanaagsan noqo, rabbi daacadiisa ugu xoogaysay ugu dadaal, qalbigaaga hadago, si fiican salaada ugu qushuuc. cibaadaad ka dhigtay. cibaado iyo caado niyadaa lagu kala saaraa. saa darteed qofka muslimka ah, gabadha muslimadda ahay, waxaad ku dadaashaa in qalbigaagu ikhlaaska aad ku badiso. ina allaha laa yandur, ilaahay ma eego suurooyinkiina, ma fiiriyo jasadkiina, ma fiiriyo ajsaamtiina iyo xoog dhismeedkiina. ilaahay wuxuu fiirinayaa qalbigiina iyo camalka taqwada ah, suu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. qofku haddii mar uu ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiisu ku weyn yahay, camalka uu qabanayo alla dartii ay ka tahay, khayr iyo wanaag buu ilaahay siiyaa. war qalbigaasaa alla daalacda. ilaahay qalbigaasuu fiiriyaa. jasadkiina ma fiiriyo, quruxdiina ma fiiriyo, haybadiina ma fiiriyo, saad u samaysan tihiin ma eego, laakiin qalbigii camalkuu ilaahay fiirinayaa. xaramka markay ictikaafayaan ama ay u xajinayaan jaahiligii waxay samayn jireen geela
inay gowracaan yay dhiigana kacbada gidaarkeeda marin jireen, hilbahana bannaankay dhigdhigi jireen. barakaa ku soo degaysay dhahayeen lan yanaala allaaha alla gaari maayo luxuumuhaa walaa dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwaa minkum. allaa soo dejiyey hilbaha geel iyo dhiigooda ilaahay gaari maayo. waxaan waad gowracdeen, dhiiggii waad daadiseen, hilibkii meeshaad dhigteen. wuxuu alla ku falayaa malaha, wuxuu eegayaa waa qalbiga. maxaad u samaysay? yaad u samaysay? seed u samaysay? yaad kaga dayatay? intaasuu alla eegaya subxaana wa tacaala. quluubta wanaajiya, niyooyinkiina fiicneeya. qof kasta niyadiisaa ilaahay ku jaasiya subxaana wa tacaala. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, wax ma jiro shaygaan idinkugu cabsi badanahay oo aan idinkaga cabsanayo waa shirkiga asqarka ah. saxaabadu waxay dhaheen waa maxay shirki asqara rasuulkii ilaahayow? qaala alriyaa, istustuska waaye ayuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisa. man samaca samaca allah, qofkii dadka ismaqalsiiya ilaahayaa fadeexeeyo wixiisaa bannaanka la dhigaa oo dadka la maqalsiiyaa. qofkii dadka istustusana muraa'i noqda ilaahay baa dadka tusiya, waa la fadeexeeyaa. qof baa tukanaya, wuxuuna u tukanayaa intuu salaada qurxiyo hebel baa kuu jeeda darteed. qof baa wanaag samaynaya, ilaahay buu caabudayaa, camalkii fiicnaa buu la yimid. muxuu thawaab u waayey? wuxuu thawaab u waayey hebel ayaa rabay ayuu isku tusahayey. saa darteed munaafiqiin oo kale yaanan noqonin. munaafiqiinta yukhaadicuuna allah wahuwa khaadicuhum, waidaa qaamuu ila asalaad qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa. dadkay istustusaan walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan, ilaahayna ma xusaan in yar maahane. waa mudabdibiin bayna dalika, muslimiin iyo gaalay ku dhex meeraystaan. laa ilaa haaulaa'i walaa ilaa haaulaa, meelaad u raacda malaha. kuwaana ka mid ma aha, kuwaana ka mid ma aha. fawaylun lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum yuraa'uuna wayamnacuuna almaacuun. suu ilaahay kitaabka ku cadeeyey subxaana wa tacaala. waa dadka wiilka iska leh, kuwa tukadee salaada habsaamiya, kuwa tukadee salaada ku ciyaara, kuwa tukadee salaada ku sahwiya, kuwa tukadee salaada qalbiga aan kaga raaxaysanin. dadka xaaladoodu saa tahay wiil bay leeyihiin. yeeyihiin aladiina hum can salaatihim saahuun. wakhtigeeday kadib dhigaan waa lagu fasiraa iyo macno badan oo markaa la mid ah. aladiina hum yuraa'uuna, dadkay istustusaan. wayamnacuuna almaacuun, maacuuntana way manciyaan ayuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. walaalayaal, niyada, camalku waa niyada. camalka niyadaa laga fiiriyaa, meeshaasuu ka guntismaa, meeshaasoo abaal fiican uu ka helaa qofka, meeshaasaa laga tirtiraa, meeshaasaa gadaal iyo bannaanka iyo hoos dhigitaan laga helaa. saa darteed abuu hurayra wuxuu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu yidhi dadka ugu horeeya ee cadaabka lagu sacirinayo lagu hurinayo saddex baa ugu horaysa maalinta qiyaamaha. waa saddex qofood dadka cadaabka lagu shiraayo oo lagu bilaabayo oo lagu hurinayo. saddex jeer buu suuxay abuu hurayra markuu xadiidku sheegayey. markuu tilmaamaba ee uu raba inuu afka ka soo bixi istaaguu ka dhacaa, wuu suuxaa. waayo xadiidka xadiis naxdin leh, xadiidka xadiis dhib leh ah, xadiidka xadiis laga naxa ah, xadiidka xadiis lagu suuxo ah. saa darteed buu yidhi saddex qofood ayaa ugu horeeya dadka cadaabka lagu hurinayo oo lagu bilaabayo oo markaa lagu furaayo. waa nin xaafidulqur'aan ahaa oo diinta ilaahay kor ka bartay, qur'aankii buu bartay, waa xaafid, waa akhriyey, waa tajwiidiyey, waa qurxiyey. qur'aankii ayuu bartay, meeshaa noo dhig. ka labaad waa mujaahid, ilaahay jidkiisa ku dagaalamay, dhiiggiisaa la daadiyey asagoo jidka alla difaacaya. kaana waa midka labaad ee cadaabka lagu hurinayo, waciyaadu billaah. midka saddexaad waa qofka saddexaadna sadaqa badnaa, aad buu u gacan furnaa, waa saqi, masaajida buu dhisay, waxyaabo badan buu sameeyey, cisbitaallo masaakiinta u sameeyey. garoob ma jirto ilaa wax buu siiyey, agoon ma jiro ilaa wax buu siiyey. kaana waa midka saddexaad ee cadaabka lagu hurinayo. waa saddex camal walaalayaal oo mid kasta ka
kale ka qiimo badan yahay oo mid kasta ka kale ka sharaf badan yahay, mid kasta ka kale ka cizi iyo qiimo gooni ah ka leeyahay. laakiin maxaa meesha yaala? maxaa meesha yimid? meesha waxaa yimid arrimaha xadiidku uu tilmaami doono. waxaa la soo qabanayaa caalimkii, waxaa la keenayaa xaafidkii qur'aanka bartay, waxaa la keenayaa kii cilmiga intuu bartay dadkiina baray, ilaahay hortiisaa la soo istaajinaya. rabbi wuxuu xusuusinayaa addoonka nimcadii uu u galay, wuuna xasuusanayaa. kadib baa la leeyahay maxaad ku qabatay cilmigii iyo qur'aankii aan ku siiyey? ilaahayow dartaa baan u bartuu leeyahay, dartaa ayaana dadka u baray. qur'aanka waa xafiday oo waan akhriyey, dartaa ayaan u bartay, dartaa ayaana u akhriyey. ilaahay wax kama qarsoona subxaana wa tacaala. kadabtu ilaahay odhanayaa beenaalaa tahay, beenlow baa tahay oo qur'aankii waad baratay. liyuqaal laka qaari, in lagu dhaho alla cod fiicana, alla qaarisana, alla qur'aan akhrin ogaa, asagaa saa rabay ee ma aha asagoon rabin oo ilaahay subxaana wa tacaala dartii ku ula jeeda. hadday dadku ammaanaan dhibkuma sugna. sidaa darteed baa rasuulka la weydiiyey qof wanaag samaynaya kadibna ilaahay dartii u sameeyey, ummadduna ay ku ammaanaan asagoon ula jeedin, waa bishaaro iyo nimco alle u soo dedejiyey ayuu rasuulku ugu jawaabay. laakiin midkan asagaaba raba, codkii buu qurqurxinayaa, waa wuu wanaajinayaa, fasaaxu iska doonayaa, waxyaabo fara badan ee uu bartay cilmigii ummadda barayaa. wax kale kamaha in la ammaanuu doonaya, in kor loo qaaduu rabaa, in la sharifuu rabaa, in la sheegsheeguu rabaa. beenlow buu ilaahay leeyahay, beenaalaad tahay, been badanaad tahay. waad baratay in lagu dhaho waa caalim, waad aqrisay in lagu dhaho waa qaari. qabta la leeyahay malaa'igta saxbiya oo wejigiisa dhulka ku jiida ilaa naarta aad ku turtaan. waciyaadu billaah. waa dadkii cilmiga bartay, waa dadkii qur'aanka bartay. maxaa naarta loogu tuuray? alla dartii kama ahayn. niyad xumi u sameeyeen. camalku waa niyadda hagaajiya. waxaa la keenayaa kii mujaahidka ahaa ee shahiiday ee jidka ilaahay lagu dilay. ilaahay wuu keenayaa, waxaa la xasuusinayaa nimcadii ilaahay uu u galay, waana xasuusanaa. ka waran baa leeyahay maxaad ku qabatay cilmigii ilaahay ku siiyey, macnaha geesinimadii ilaahay ku siiyey. rabbiyo waan dagaalamay fiika adi dartaa buu leeyahay. waan diriray oo jidkaagaan difaacayey, waa diriray oo diintaadan difaacayey, waa diriray ilaa lay istishhaaday oo lay dilay oo aan ku shahiiday. ilaah wax kama qarsoona, caliimun bidaati suduur. beenlow baa tahay buu ilaahay leeyahay, been baad sheegtay. waxaan oo dhan waad qabatay, waxaase u qabatay in lagu yidhaahdo fulaan waa shujaac, waa geesi, waana lagu yidhi. wax kale ujeeddadiisu ma ahayn. wuxuu rabay in kor loo qaadqaado, wuxuu rabay imtiqaanaa in loo sameeyo, wuxuu rabay keliya oo ujeeddadiisu ay ahayd in baal dahaba lagu qoro. wuxuu ujeeddadiisu ahayd in mataqaanaa taalo loo sameeyo. waxay ujeeddadiisu ahayd in qubuuraha qaranka lagu aaso. waxay ujeeddadiisu ahayd astaanta muusiga in loo garaaco ee waddanka. waxay ujeeddadiisu ahayd astaantii calanka in karfan looga dhigo. waa laguu sameeyey, xaalkaana waa laguu qabtay, wixii oo dhan waa lagu yidhi. laakiin maanta qabtuu ilaahay leeya malaa'igtiisa wejigiisa dhulka ku jiida ilaa cadaabka lagu tuuro. waa kii labaad. yaa soo haray kii saqiga ahaa, gacan furnaa oo wax kasta iyo meel walba oo wax looga baahda bixin jiray. hortiisaa la soo joojinayaa rabbulciza. waxaa la leeyahay oo la xasuusinayaa nimcadii ilaahay u galay, waana xasuusanaa. mar allaale markuu xasuusto oo la xasuusiyo nimcadii ilaahay uu u galay ayaa la leeyahay maxaad ku qabatay? markaasuu leeyahay ilaahayow jid ma jirin oo aad jeceshahay ilaa faqta caley, waan ku nafaqeeyey, waa ku bixiyey, mashaakil kastaan ku xalliyey, xoolahaad isiisay ilaahayow darta ayaan u bixiyey oo aan u sarrafay oo meel kasta markaa u gaarsiiyey. ilaah wax kama qarsoona. beenlow baa tahaa la leeyahay, kadabt, waa been sheegtay, been badanaad tahay, waad samaysay. laakiin waxaad u samaysay in lagu dhaho hebel waa saqi, alla gacan furnaa, alla hebel saa ahaa. wixii oo dhan maanta waa laguu yidhi, waa lagu soo ammaanay. hadday wax kuu tartay, malaa'igtaa la amraya inay qabtaan oo ay wejigiisa dhulka ku jiidaan ilaa naarta jahannama lagu tuuro. waciyaadu billaah. wixii wuu bixiyey, laakiin wuxuu u bixiyey waxay ahayd in la ammaanuu doonaayey. wuu gacan furan yahay, alla hebel fiiriya, alla su wax u bixinaya fiiriya, alla wuxuu sameeye fiiriya, alla wuxuu dhisay fiiriya. wax kale kama ahayn. allaha kaa jaasiya ma ahayn. camalkaaga niyad fiican u samaysa kama ahayn. bulshada uunbuu rabay inay ammaanaan, bulshadaa buu rabay bal inay wax u qabtaan.
kumi hadduu bixinayo video baa laga duubaa, wax yar agoon markuu siinayo gidaarkaa lagu soo dhejiyaa, dadka tabaalaysan markuu dhex joogo saasaa kaamirada looga daba wataa. intaa maxay ujeeddadiisu tahay? in adduunka lagu iclaamiyo, inuu magac fiican ku yeesho, inuu kor u kaco. kor kacitaanka ilaahay yaa qiimo badan subxaana wa tacaala. qul illaahumma maalika almulk tu'ti lmulka man tashaa watanzicu almulka miman tashaa watucizu man tashaa watudillu man tashaa biyadika alkhayr inaka calaa kulli shayin qadiir. saa darteed niyada aad ha loo fiicnaayo, niyadda ha la wanaajiyo, rabbi ha loogu dhowaado. niyad fiicana qiimo iyo wanaag leh. ilaaha xaqa ah waxaanu ka baryaynaa inuu xaqana waafajiyo. wixii niyada nooga dhimin dib danbaanu ka dhammaystiri doonaa, laakiin inta aan ku baraarugno, aanana ogaano ilaahaysan agtiisa khayr iyo wanaag, sharaf iyo darajo sare aan oga gaarno. wabilaahi towfiiq, wallaahu subxaana wa tacaala aclam. جزاك الله خير. شكرا الشيخ حسن إبراهيم عيسى. الشيخ حسن إلهي ميزانك حسناتك كوسار إلهي نحق حفظي. أنا كان دمانتين إن شاء الله تعالى قف كستا عملك وقبنا إخلاص هودي إلهي درتز هودي إن شاء الله تعالى إلهي نحق حفظي. بارك الله فيك شيخ حسن. رنهانتي آد أي أقلنت خاصة markuu soo baxay teleefoonadan iyo smartphone-ka la dhaho iyo kaamirooyinka mararka qaarkood waa yaabisaa oo dhan kastaba waxa waay kaamiro camalkaana qabana. ilaah dartiisa walaalaha uula jeedo ilaahay maxaa yidhahdaa miisaanka xasanaadka u saaro. dhammaanteennana ilaahay maxaa yidhahdaa hanaga badbaadiyo shirkul asqar ee riyaada insha allahu tacaala. sheekh xasan ilaahay ku xifdiyo. dabcan dersi ayaa leedahay ayaa filayaa meelaha kale qolalka kale. marka baaraka allah fiik ilaahay ha ku xifdiyo waa ku fasaxayna insha allah. sidoo kale walaalaha dhanka live-ka ugu xiran facebookka miisaanka xasanaadka allah idin saaro. muxaadarada qayimka ah waxaan rajeynayaa qayb labaad ayay leedahay muxaadarada biidni illaahi tacaala. qaybta labaadna waan soo iclaamin doonaa. iclaanka waxaa meesha kala socotiin waa qolka Somali Islamic Al-Rahma Center ee Baltoka. walaalaha isticmaalo insha allah. facebookana waa kusoo xireynaa intaan awoodno insha allah tacaala. ilaahayna ha idin xifdiyo. وجزاكم الله خير. waxaa jeclaan walaalihii inoo duubay fadal wacalmaad studio.